بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo nin u gafay reer banaadiri oo dhan gaar ahaan sidoo kale qabaa'iladiisa ka mid ah jaa'ifeeyey iyo hadallada uu ku kacay inaan jawaab ka bixiyo laakiin intaas waxaan leeyahay inta ka horeyso ila daawada waxa uu leeyahay sheekhan halkaan naga daawanaysaa muuqaal baahiyaha dabqa TV ee fuliisa wadanka Talyaaniga ee magaalada Firenze warka jira dhulka sheeg maanta waxaan ku soo qaadanaynaa laba mowduuc mid kale oo rabo inaan ka hadlo waxa waaye malaaqa beesha Mataan Cabdulle oo gaf aan la qaadan karin ku kacay waa sidii aniga ila tahay asigoo ah ninkii ummadda dhan ee Muqdisho timid martigeliyay isla waqtigaas haddana asiga ismartigeliyey oo nin marti ahay u martiyey wuxuu ka hadlay sheekha in uu malaaqa reer mataan uu gaf ku dhacay wuxuu yidhaahday asagoo ah qofkii martigeliyey soomaalida oo dhan maantana ase ismartigeliyey nin uu marti u ahaa uu martigelin uu ku sameeyey horta waxaan u sheegayaa malaaqa reer mataan wuu saxan yahay wuxuu ku saxan yahayna waxay tahay shirkan uu kasoo qayb galo waxay tahay walaalihiisa reer xamar ah magaalada muqdisho isla leeyihiin ee la yidhaahdo xamar ayaa marti qaaday maadaama asagana uu yahay xamar daya uu yahay waad garanaysaa magaalada muqdisho waxay leedahay qayb magaalada gudaha xeebaha xigta iyo qayb dibadeedu baxsan ee balcad iyo dhanka xigta haddaba dadkan markay ahaayeen magaalada xamar ee dhisneed dadkii ugu dhawaa ee miyiga dhanka degnaa waxay ahaayeen walaalahooda reer mataan waxbana cid umay gafin iyagana iskumay gafin laakiin qalad yar ayuu ninkan aaminsan yahay taariikhda lama socdo sida jirta waxay tahay reer banaadiri iyo reer mataan oo wada jiro qaybta magaalada ka baxsan iyo magaalada iskugu jira ayaa soomaali oo dhan wada martigelisay keligooda ma ahayn haddaba aan sii dhegaysana hadalkiisa maxaa yeelay ninka Mataan Cabdulle ee malaaqa ah Soomaali oo idil ayaa u soo martisay cid gaar ugu soo martisay habeeraatee ma jirto aan galo nin kale leeyahay malaaqa waxaan rabaa malaaqa waxa waaye nin sharaf leh malaaqa waxa waaye nin Soomaali oo dhan ee marti u tahay malaaqa waxa waaye nin lagu yaqaan inuu magaaladan xamar leeyahay oo leeyahay malaaqa waa nin awood u leh inuu meel soo istaago oo dhihi karo dawladda maanta waa inay iga baxdaa maxaa yeelay malaaqa qiimo gooni uu leeyahay xushmo gooni uu leeyahay laakiin malaaqa waxaa ka hoos baxsan malaaqa dhulkan asiga ma haysanahay dadka la dhashay oo asiga walaalihiisa ah oo naftooda u huray dhulkan oo hadda uu leeyahay maanta reer xamar inuu u tago asigoo sharaf leh asigoo oo aan dhihi karo maxal dhahay asigoo loo soo martiyey inuu ninka u soo martiyey oo u martiyo waa waxaan sharaf lahayn waaye mid baa wanaagsan inuu ogaado reer mataan iyaga cid kuma soo martin magaalada xamar ama muqdisho ama banaadir laakiin dadkii u dhashay reer banaadiriga ahaa ayaa berigi hore reer mataan laftirkooda kusoo dhaweeyey kusoo marti qaaday deegaanka xamar ah sidaa bay kusoo galeen deedna ummadii kale kolba sidii qof walba oo u imaanay loo soo dhaweynayay ayaa magaalada sidaa loo soo wada degay reer xamarna magaalada ha ka soo galaan dhanka badda ah ee bariga ah ama meesha doonaan ha ka imaadaan laakiin waxa weeyaan waa dadka deegaanka asalka ah ee u joogay intaa inaad ogaato ayaa muhiim ah aniga ku dhihi maayo sharaf maleedid malaaqayna tahay xushmaanaga mudan tahay macnaa beesha muduloodo dhan ayaa xushmad u leedahay laakiin waa loo soo dagaalamay maqaamkan macnaa in aan wax ku noqono dad badanaa god ugu jiro oo leh muduloodo dhan ugu jiro god marka waxaa laga rabaa in aad naqatid malaaq mudulood inaad naqatid ma loo baahna malaaq reer xamar inaad naqatid hadalka uu leeyahay mudulood oo dhan ayaa god ugu jiro si magaaladan loo helo uu ku qaldan yahay magaaladan weligeed ayay jirtay nabad ayaa lagu noolaa waxa weeyaan gumayste baa yimid xilligii dambe gumaystaha wuxuu sameeyey in oo dhulalkii la wareego
muxuu ahaa uu qabsado kadibna alla subxaana wa tacaala fadligiis ayaan iskaga xoreynay kadibna dowlada ayaa ka dambeeyey dowladda kadib dowladda qofka maamulka ka ah ama dictator buu noqon karaa ama wuxuu jeclaan karayaa kursiga haddaba waxaa dhacday dagaalo laga soo horjeeday dowladda hore ee liskaga xoreeyey baa dhacday haddaba kadib markii liska xoreeyey dee dadkii magaalada soo gala ee xoreeyey ee ka mid ah mataan cabdi ee reer mataan ah walaalahooda maxay sameeyeen markay magaalada soo galeen ay soo wada galeen dhammaantooda qaribaad ayay u geysteen sidaad ogtihiin dalkii haddii markaa la dhisi lahaa ee laisku keeni lahaa wax wacan bay ahaan lahayd geeri iyo dil iyo boob iyo dhac ayaa ka dhacay waxa imanka inaan ka hadla aan doonayo aan jeclahay inaan ka hadlo ma aha laakiin siduu leeyahay waa loo soo dhintay buu leeyahay dhimashada maxay ahayd waa in laiska xoreeyaa bay ahayd qofkii dhibka kugu wada ama dictator hadduu yahay ama aad dhibsanayso laakiin ma ahayn inaad dalkii aad buriso iyo dadkii maatada aad layso ma ahayn dhimashada uu ka hadlayo aniga ma fahmi karayo war maxaad ku keentay adoo malaaqe oo lagu soo martay ay Soomaaliya oo dhan maanta marti ku tahay oo cid kasta aad marti ku tahay oo malaaqe yir leeyahay war inaad reer xamar u tagtid aad tiraahdid maxaa la aniga reer xamar meeshan ka talneeno reer xamar sharaftii oo ay lahaayeen ayaga ka tageen hadda wuxuu yasayaa uu leeyahay inaad reer xamar u tagtid adigoo reer mataan ah maxaa kugu kalifay horta waxaan leeyahay reer mataan kan noociisa way dhaamaan sidoo kalena waxa weeyaan waa dad hawiye ka tirsan ee yaqaano xeerka iyo qaanuunka iyo mar walba cadaaladda ka hadla reer mataan hawiye ayay ka tirsan yihiin ani hawiye imanka ma jaa'ifeynayo hadal xun kuglama hadlayo laakiin ninkan noocan ah ee iyaga ka tirsan ee taariikhda aan waxba ka ogeyn ee reer dhan iyo qowmiyad dhan iyo dad dhan uu aflagaado uu gaarsiinayo waa inay ka qabtaan hawiyo mana jecli inaan maanta halkaan aan hawiye aniga ku beegsado soo asaga ugu beegsanayo reerkeyga oo ah reer xamar ama reer banaadiri loo yaqaano marka dhulalka ballaaran la eego reer mataan taariikhda ayay ka og yihiin waxay og yihiin reer xamar waxay yihiin iyo taariikhda soo dhex martay iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyo soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen reer mataan magaalada lagu soo dhaweeyey gudaheeda ayay la socdaan adigoo kale maaha ee iska hadlayo reer xamarna waxa weeyaan taariikhdooda waa in aad barataa reer xamar doonay ku yimideen horta ha ogolaadaan inay doon ku yimideen aniga ma reer xamar leeyahay macnaan walaxan ku qaybina aniga leeyahay jawaabta uu leeyahay reer xamar doon bay ku yimaadeen uu qaldan yahay haddee doon ku yimaadeen xataa goortay doon ku yimaadeen ma aha shalay iyo maanta ma aha waa waxa weeyaan taariikh hore ee aad u fog ee 1000 sano iyo 900 sannadood ay gaarayso waa intuusan asaga xataa soo gaarin qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed waxaan ka hadli doonaa siyaabada inuusan ku soo gaarin hadduu afrikaannimo sheeganayo afrikaannimada uu xeebta iyo deegaanada uusan ku soo gaarin xilliga hadduu sheeganayo inuu yahay carab oo asaga xataa yimaade xilligaas inuusan dhulka reer xamar ee maanta joogaan asalkoodan uu ku muxuu ahaa ee ku beermeen inuusan xilligaa asagaba joogin uu ka hadlayo reer xamar doonay ku yimideen waa dad cadcad bal ka warar waxa xagga ka jiro bad le waaye intii ka soo jiro meesha ayaa ka soo jiro ishaga ayaga baday ka yimideen intii ka soo jiro meel kasto waxa ka jiro muduloodii waxdaana waxa ka jiro reer mataan iyo waxdaana ka jiro wuxuu leeyahay bad bay ku yimaadeen dhinac walba yaa ka xiga dhulka sidiisaaba bari ka imaa ama baxri ka imaa waa meel isugu yimaado weeyaan caalamka haddaad arkaysaan nin walba meel buu degan yahay taariikhda halkay kasoo bilaabmatay bini'aadanka iyo tarankiisa iyo nin walba halkuu u guuray waa iska cadda laakiin dhul waxaa lagu yeeshaa yaa kusoo horeeyey beriga ka imaaw ama badda ka imaaw qofkii deegaanka kusoo horeeyey ayaa yeelanaya deegaanka haddii hore loo degnaa ee xoog kaga qaateen dadka ee laayeen taa waa arrin gooni ah ee maxkamad iyo arrimo kale ee xuquuq la yeelanayso laakiin haddaadan degnayn ee lagaa soo hordegay adiga aad timaado beriba ka imaaw ama baaskiilba ku imaaw ama gaariba ku imaaw haddii lagaaga soo horeeyey goobtii waxaad ka hadli karaysaba maba ahaba taa ayaad u sheegaysaa hadda imanka ninkan wuxuu caddaysanayaa in ay soomaalida ay yihiin oo nagu tilmaamaya inaan nahnay asalkeena dad afrikaan ah ayuu halkaa ka caddaynayaa xataa haddii afrikaan ay yihiin soomaalida maanta nin walba deegaankiisa goortuu yimaado unbuu sheegan karayaa laakiin dhulka afrikaan dhexda ka degnaa hareeraheeda ciddii iga soo horeysa ee soo degtay ma yeelan karayso hadal soconaya ma aha halkay ka yimideen marka halkay ka yimideen waa in lagu xisaabtamaa reer xamar nimankaan la leeyahay ha dhahaano ana dhulkan waa ku dhaqannahay waxaan ka harnay isticmaarkii waxaan ka harnay sayid barqash waxaan ka harnay fulaan hadda waa soomaaliyowni soomaaliyaan nahay weligood wax ugu diiday
su-aasha uu leeyahay imankuu ka hadlaya reer xamar xaggay ka yimaadeen ha qirtaan inay doon iyo waxaa ku yimaadeen ama isticmaar ee ka hareen ayuu leeyahay. taa horta waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu reer xamar ugu xadgudbay. waa inuuna ka bixiyaa muxuu ahaa raaligelin waa inuu ka bixiyaa. maxaa yeelay reer xamar wuxuu ku tilmaamay inay isticmaalka la shaqaynayeen. taariikhda waxba kama garanayo. reer xamar iyagoo deegaanadooda degan walaalahooda kala soomaalida noocyada kala duwan ee isbahaysanayaan ayaa gumaystihii soo galay. gumaystaha wuxuu kasoo bilaabay dhanka bariga iyo boosaaso iyo dhulalka xoog buu kusoo qabsaday wuu soo galay ilaa iyo wuxuu kasoo bilaabay somaliland walaalaheena dadka degan muxuu ahaa dhulalka degan ayuu kasoo bilaabay wuu qabsaday. deedna markaas bay sidaa markay usoo galeen ciidamay soo samaysteen magaalada caasimadda ayay soo weerareen. dadkii degnaa asal ku ahaa reer xamarka ah iyo walaalahooda ay kusoo dhaweeyeen hawiyaha qaar ka mid ah gaar ahaan reer mataanka iyo waxaa degnaa iyo marka dambe xilli dambe ay yimaadeen iyagana walaalahooda mursadaha ee meel ka degeen ayaa waxaa dhacday inuu gumaystihii soo galo. weli ciidamada ugu badan ee dhankaas uu kasoo kaxaystay ee tahay dhankaa oo kasoo galay hobyo iyo dhulalka kale soomaalida kale inteed iskugu jirta ha ku jiraba abgaaleen ayay sidaa magaalada lagu soo wada galay. reer xamarkii odayaashooda dadka maamulka halka ahaa weligooda ahaan jiray soldonada iyo muxuu ahaa maamulka jiray ee halkaa lagaga burburiyey ee gumaystaha sidaa ku qabsaday. reer xamar markuu leeyahay doon ay ku yimaadeen doon kuma imaan adeer. reer xamar weligood bay degnaan jireen taariikhdoodana waa taariikh fog ee hore ay u lahaayeen waa inaad aqrisataa adiga. laakiin waxaad sheegaysaa halkaad ka timaada ayaa lagaa doonaya inaad sheegto. imaa inaad tahay afrikaan oo adiga laftirka ana hawiye malihi iyo isaaq iyo daarood walaalahayga nin walba inuu carabta ka yimaado wuu is ogyahay. aldaarodiya waxay ka yimaadeen muxuu ahaa dhul carbeed waa dad carab ah ha iska guursadaan dadkii afrika degnaa sidaa midabkooda ha noqdo. alisaaqna waxaad garanaysaan muxuu ahaa sheekh isxaaq inuu yahay nin carab ah oo halka nasabkiisa uu gelayo asagana uu guursada habar xabusho ah inan xabashiyad ah oo sidaa ku tarmay. anagana sidoo kale dadka carbeed baanaan hore ay u yimaaday ilaa xilli hore ay soo degay dhulalkan muqdisho ilaa 1000 sano ilaa 900 iyo wax ka badan oo sano. deedna halkaa aan ku tarannay taariikho kasii horeysana ay jirtay dowladdii ximyar ahayd dad ka yimaada halkan soo degay inay yihiin ayaa la tilmaamaa. haddaba anigu aan kuusoo koobo 1000 sano ayaan kusoo koobay maadaama waxaad fahmi karaysa ee noqoto. taa darteeda haddaba isaaqi carab buu noqday daaroodka carab buu noqday aniga carab baa noqday walaalaheena raxweynna digil iyo mirif carab bay noqdeen. haddaba waxaad leedahay soomaalida carab ma aha waa afrikaan ayaa adiga imika leedahay taana waa in aad raaligelin ka bixisaa. maxaa yeele soomaalidoo dhan ayaad u gaftay maadaama aad ku tilmaamaysa inay afrikaan yihiin anagoo keliya aan carab nahay. anagana waxaan kuu sheegaynaa inay dhulkeena tahay haddii carabnimo ay tahayna carabnimo waxaa weeyaan daarood baa ah isaaq baa ah raxweyn baa ah iyo soomaalida sidoo kale hawiye xataa inay carab yihiin baa iska dhici karayso. laakiin adiga waxaad sheeganaysa wax kale ayaad ku hadlaysaa marka taana waa inaad jawaab aad ka bixisaa. inta wax ugu diiday ma leh laakiin waxaa idin sheegaa ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegaa reer xamar oo meel kale degan keena ii keena soomaalida meel kastay degan tahay reer xamar oo waxaan rabaa oo meel bad aan ahayn degan keena. wuxuu yidhaahday soomaalida meel kasta ayay degan tahay reer xamar meel aan bad ahayn degan ii keena. sababa ayaa jirto reer xamar waxay degan yihiin ilaa iyo juula jawaay ilaa waxay degan yihiin jowhar hareeraheeda oo dhan xeebaha ayay degan yihiin. muqdisho way degan yihiin sidoo kale hareeraha xeebaha baraawo marka meel walba way degan yihiin. dhulalka afgooya ayay degan yihiin ilaa iyo waxay degan yihiin baay bokool ilaa iyo hiiraan baa laga helayaa. meel walba reer xamarka ay degan yihiin bu'aal gudaheed baa laga helayaa laakiin ma yaqaano. hadduu garan lahaa waxbay ahaan lahayd. reer xamarka intay u badan yihiin baa xeebaha ah. sababta keentana reer xamarka inaysan dhulalkaas oo dhan aadin waxay tahay tasaawujkooda ay ka guursanayaan dadka kale ee deegaanka degan ayaa iska yaraa. laakiin markuu yimaaday muxuu ahaa walaalkeena soomaaliyeed ee daarood ah afrikaantii dadka kale ayuu guursaday sidaas buu u tarmay deegaanada ku tagay. walaalkeena isaaq ah sidoo kale dir ah saasay sameeyeen. sheeqaal waxay doonta ha noqoto qadada carab ah laakiin deegaanada ayay ku tarmeenoo hore u galeen. laakiin anaga waxaan dad magaalo laho magaalada baan samaysane gudaha uma sii dhaqaaqin magaaladeena iyo xeebaheena ayaaba meel barwaaqo ahayd ilaa ay afgooy ilaa ay beedhabo iyo dhulalka qaar bu'aal ay ka mid tahay ilaa ay hiiraan weynu gaarnay. laakiin intaa in ka badan
ma doonaynba aan yeelan wuxuu leeyahay reer xamar oo meel kala degan ma yaa degan mee berile yaa degan dhulkan afgooy ku yaalo oo dhan dhammaantood yaa degan afgooy yaa degan dhammaan waa dhulal reer xamar weeyaan ay degan yihiin weeyaan baraawo waa dhul reer xamar weeyaan marka waa dhul reer xamar weeyaan laakiin hadduusan garanayn waa mushkilad waxa weeyaan asaga u taala male reer xamar halkaasay degan yihiin afarta gees waxaa ka jira maxaa lahaye reer mataan iyo waxaa ka jira iyo wacdaan been ayuu ku sheegay markuu leeyahay afarta gees reer xamar waxaa ka jira reer mataan iyo wacdaan keliya afarta gees reer xamar waxay kaga jiraan reer mataan waxay tahay iyo wacdaan waxay tahay waa gobolka muqdisho laakiin marka laga baxo shabeellada hoose iyo kismaayo bu'aale iyo la gaaro iyo jowhar iyo waxa weeyaan keliya kama jiraan abgaal kama jira kama xigo waxaa ka xiga dad kale ka xigo biimaal baa la degan walaalahooda ah raxweyn baa la degan waxaa la degan dad kaloo soomaali ah walaalahooda baa la degan laakiin miyuu garanayaa waxba kama garanaya ma yaqaano deegaanka reer xamar wuxuu moodaa keliya inay xamar tahay mideeda kaleento qofka horta waa inuu ogaadaa meeshuu ka yimid qof la arko origin uu leeyahay diintaana faraysa waad ogtihiin qof la arko meel uu ka yimid jaduur uu leeyahay marka horabana wuxuu leeyahay anaga yamaniya ahay marka horaba wuxuu leeyahay ana cumaaniya ahay marka horabana soomaaliya ahay asoo rabaa haddana inuu yiraahdo kuraasta iyo wax ana qaybinayo hadal wanaagsan ayuu ku hadlo wuxuu dhahay qof walba waxa weeye halkuu ka yimaado waa inuu ogaadaa juduur buu leeyahay oo dhaa kelmad carabi buu soo qaato oo ula jeedo xidid buu leeyahay ama wuxuu leeyahay takfiir buu leeyahay uu muxuu ahaa qofka raaco haddaba aniga waan kuu sheegay takfiirteedu waxay tahay inaan asalkeyga carab aan ka yimid dhulkan asagoo maranna intaasoo muxuu ahaa kun iyo boqolaal sano ka hor aan soo dega aan magaalo aan ka dhiga aan dhistay haddaba adoo waxaan kaaga fadhiyaa saaxiibkeyga maanta reer xamar usoo fadhiistay inuu aflagaadeeyo adiga xagee ka timid jawaabta way ku sugaysaa halkaa ka timid baad ii sheegaysaa imaa inaad carab ka timid oo aniga adiga aan isku mid nahay imaa inaad ka timid aad leedahay hiridid aad leedahay afrikaan ah oo dadka afrikaanta ee kugu dhow aad kasoo farcamtay ama waxaa la odhan karaa maxaar baad kasoo gooday ama oromaad kasoo gooday ama wax kale afrikaanta ka mid ah ayaad kasoo goodo ayaad ka tirsanaan jirtay marka waxaan kaa doonayaa adiga dhankaad ka timid baan kaa doonaya haddaad ka timaado dhanka oromo iyo afrikaanta kale adeer waxaan ku leeyahay magaalada muqdisho iyo xeebteeda uma dhowo dadka heer ay kusoo gaaraana ma jirto qofka ugu dhowaana adoo ahaa ee soo dhowaada anigoo deganna waad igu imaade halkaas baan ku walaaloona aan ku heshiinay haddaad tahay carabna dee adeer waxaan labadeena isku jaa'ifeyna ma jirto adigana carab baa tahay anigana carab baan ahay labadeena deegaanku waan soo wada degnay waxaan mudan nahay inaan isqadarino aan isxishmeeno maaha inaan isku xadgudubnaa anaga waxaan leenahay malaaqa waxaad malaaq u tahay ciidan daddan nin u baahan reer xamar iyo gibil cad nin u baahan matiid hadalkaa wuxuu leeyahay cid uma baahnid anagaa noo baahan tahay ee tiro badan adiga waxba kaagama baahno maxaa yeele deegaankaaga ma ah asagaa ku soo dhoweeyey adiga waa inaad reer mataan xaggiisa dambe soo istaagtaa reer mataan baa kugu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee asaga marka hore reer xamar ay ku soo dhoweeyeen laakiin asaga maanta wuxuu la hadli karayaa dadka asaga soo dhoweeye ee deegaanada xamar dibaddeedu uu ka degnaa ee gudaha lugta usoo saaray ayuu la shiri karayaa ee ah reer xamar reer banaadiri guryahooda iyo aqaladooda iyo dhismayaashoodana ay ku taalo adiga muxuu kaagala hadlayaa sidaad sheegayso aniga inaan u gafo ma dooneeyo ee mudulood iyo mudul iyo waxaa baad ka sheekeynaysaa inay dadka mudulo ee degnaan jireen ee miyiga ahaan jireen dhisma maba ka sheekeynaysidba see xamar ku yeelanaysaa marka adeer waa ninka kugu soo horeeyey ilbaxnimada ee kuu sida ee magaalada kaaga soo horeeyey ee kugu soo dhoweeyey marka reer mataan ha ku xadgudbin waxa weeyaan taariikhda baro ixtiraam halkaa ka yeelo waxaa tahay ninkii tali lahay waxaa tahay ninkay talada ka gooday waxaa tahay ninka lagu sharfi lahay wax kastoo dhaco laakiin sharafta adiga ha iska qaadin mar walba wuu sharfan yahay sharafna iskama qaaday adiga waa inaad garataa waxaad tahay sidoo kalena waa inaad garataa inaad taabicaad u tahay uu ku keene walaalkaaga kaa weyn reer mataan ah waa inaad ixtiraamtaa sharaf uma haysid sharaf asagaas ku hayo waxa weeyaan awooddiisana asagaa sita maaha inaad deegaanadiisa iyo magaaladiisa aad kula taliso dadka kula dhashay oo u dhalatay oo ku duubtayna sharafta ha ka qaadin waxaad leedahay dadka ku duubtay
way duubteen maxay u duubteen maadaama hogaamiye uu yahay sharafna kamuu qaadin dhammaantooda asaga xaggiisa dambe xigaan laakiin dadkan kale uu la sharayo waa dad kale iyagana xaq leh awood leh ee deegaanka ka tirsan laakiin adiga deegaanka xagga kaga tirsan tahay ninka kusoo keenay ee wakiilka ka ah u daba mar adag xadgudubka iska ilaali mataan cabdulle dhulka inay leeyihiin oo dhulka ilaa hadda weli laga bilaqaysto cid kasta og 20 taa waa run mataan cabdulle dhulka waa laga bilaqaysta laakiin yaa ka bilaqaysta waa adigu weeyaan walaalkiisa uu soo dhawaysta ayaa dhulka ka bilaqaysta ee xoog ku qaadanaya dhulalka kale xoog ku haysto iska daa waaba ogtahaba xumaanta aad samaynaysa waxaad samaynaysa aad ku dhaqaaqayso ma xaq ka shaqaysa anaga waa u qaylnaa anaga reer mataan mi mudulooda ah ma sheeganaya xataa wax qabiilka aan ka dhashay ma sheeganaya aniga mudulooda ah imaanka waxaa laga rabaa inuu ahaado mudulood ugaaska waxaa laga rabaa inuu ahaado mudulood wabarka wuxuu leeyahay wax kasta waa inay mudulood noqdaan war mudulood waxay doonaan ha isku noqdaan ha ahaadaan laakiin marka magaalada muqdisho laga hadlayo qofka ugu dhow ee deegaan ah waa reer mataan adigana walaalkaaga xaggiisa u soo mar waxba hana xijin anaga wax mudulood ka xageeyo oo ka xageeyo habeeraatee ma jiraan anaga waxaan aaminsanahay inaan nahay mudulood wallahi taas adun baa aaminsan mudulood way jirtaa laakiin mudulood waxaa ku tihiin qabiil ahaan deegaan ahaan kuma tihiin haddaad qabiil isku qabiil qofka aad tihiin haddaad walaalo qofka aad noqotaan hadduu dhul i guri iibsado miyaad la leedahay lama lihide hadduu geeriyoodo oo u baabao uu dhinto dhaxalka kasta yar kaa soo gaarto un ayaa laga yaabaa maar qaarna dhaxal kuma soo gaaraysa maxaa yeele carruurtoo dhale ayaa dhaxlaya marka waxaad leedahay haddaan mudulood aan isla nahana dhulalkaagii deegaankaaga dhaxlaya ayaad ula jeedaa soo ma marka ma rabno sharafta iyo xushmada aad leedihiin inaad iska qaadaan oo wax isku samaysaan oo non vogliamo quello waxaan rabnaa in walaala ah macnaa dhulkan usoo dhintay dhulkan waa meesha laga yimid iyo meesha la yaa usoo dagaalamay 13 wuxuu taagan yahay walaalaan ahay dhulkan waan usoo dhimayna waxaan aan usoo dhimayna ayuu leeyahay dhulkan dadkoo dhan baa usoo dhintay haddii laga hadlayo dowlad dhib badneed ee liska xoreeyey cid walbaa deegaan walbaa usoo dhimatay taana waxa weeyaan waa waajib bay kugu ahayd inaad u dhimato anaga xataa dhulka waan usoo dhiman sidaan gumaystii wax walba aan kaga difaacayni sidaan kaga difaacayna aan kaga hor imaanayni nafteena ayaa ku baaba'day waalidiinteena baa ku dhintay ilaa ay markii ugu dambeysay xornimada waad ogeedeen SYL dadaalkay samaysay dhalinyarada reer banaadiriga ahaa ee iskugu jira Soomaaliya oo dhan ha u badnaadaan dadkan uu iminka uu leeyahay ama reerahan oo aniga aan ka dhashay uu leeyahay waa dad tiro yar iyo waxa uu ku tilmaamaya ha u badnaadaan laakiin Soomaaliya oo dhan way ka qayb gashay haddaba dad xilliga xornimada ka qayb qaatay tiradoodana inta ahayd inuu maanta ku tilmaamo dad waxa weeyaan aan la tashan aan deegaanka lahayn ama doon bay ku yimaadeen waa iska hadal weeyaan cid doon ku timaadana adeer inay siraha iyo waxaasoo dhan dhisato deegaanka kuguma qabsan lahayn deegaanada faraha badanna ma degi lahayn sababta keenta waa maxa waa dad juduurtooda iyo taariikhdooda hore halkaa deegaan u ahaa ayay ahaayeen waa inaad sidaa aad ogaasaa aad ku qadarisaa maantana waxaa caalamka ka jiraba maado la yiraahdo carbon 14 dating ama loo yaqaano alcarbon almushica lagu baari karaya dhismo walba inta uu jiro marka loo isticmaalo maadadaas maba ahaba in la iswaleeliyo ma aha waa wax muxuu ahaa aad u fudud taa ayaa adeegsan karta hataad u baahan tahay dhismayaashiina kuwa sare maana kuwa hoose xataa inaad qaadato muxuu ahaa la tag halkaa shaybaarada caalamka ha kuu sheegaan inta sane ee dhismaha dhisan yihiin doon iyo wuxuu ka sheekeynayaa isticmaar ee shalay ahaa ee 100 sano ka hor ahaa ragaa usoo dagaalamayo haddaba ninkan waxaan leeyahay adeer waad gaftay horta Soomaaliya oo dhan waad u gaftay waxaad ku tilmaamtay dhammaantooda inay asalkooda Afrika ka soo jeedo taa waxa weeyaan waa inaad ka soo bixisaa raaligelin ilaa maxaa yeelay Soomaalida dhammaantooda Afrikaan ma aha sidoo kale hawiye inay yihiin Afrikaan iyo inay yihiin Soomaali iyagaa ku qabsan doono maxaa yeelay adigaba waa ka tirsan tahay laakiin iminka waxaad halkan ka caddaysaa aad sheegatay inaad Afrikaan tahay dee taa adiga ku taalaa laakiin dhulalkeena waa dhulalkeena waxaad doonta ahaa nagama qaadan karaysid waa dhul anaga aan deganaha aan kaaga soo horeynay hal mar haddaan dhulkeena kaaga soo horeynin dhulkeena iyo xaqeena yahana waa inaad anaga aad naga dambaysaa kuraastaan waxaad ka hadlaysana waxay u dhexaysaa kuraastaan kasoo baxday aqalka sare maadaama gobolka banaadir aan laga siinin
inay u matalaan dadka gobolka banaadir u dhashay ee iskuga jira reer xamar ama reer banaadiri say u dhan yihiin iyo sidoo kale reer mataan kadib reer mataan waxay garato ay qaybteeda kasoo hagaaga hawiye walaalaheeda in ha ka siiso laakiin labadooda waa inay kala qaybsadaan ee xaq u kala qaataan reer xamarna waxay helaan dadka kale iyagana la deegaanka muqdisho degan cidda ay ku sharfi karta ee ku casumi karayso ee isleedaha karti buu leeyahay magaalada qayb weyn buu ka qaatay iyadana waxay ka siin karayso ha ka siiso laakiin arrimahan oo kale inaad ku hadasho adigoo qof da ah talyaaniga iminka tege elis lahaa aqoon buu ka korsanayaa ayaad qabyaalad iyo xadgudub ayaad ka korsatay ma ahayn inaan maanta anigoo inan dhalinyartii dagaal kadib dhasho ah inaan ku saxo laakiin taa waa kugu ceeb raaligelin baad ayay u baahan tahay inaad ka bixiso weligaana waxaad ogaataa reer banaadiri waa dadka xadaarad ku keenay waa dad halkaa soomaali maanta muxuu ahaay ku tanaaday gaarsiiyo weeyaan marka waxa weeyaan xishmad bay kaa mudan yihiin ee ixtiraam sidaasan iyagaba afka aysan kula soo gelin hawiye iyo dad kale ee soomaaliha aysan kaga shaqaynin halkay ka yimaadeen iyo waxa quseeyay kama hadalna anaga waayo ixtiraam baan leenahay ixtiraamka ayaynu ka shaqaynaa marka waxaan ku leeyahay waa raaligelin kasoo bixi waxyaabahan aad samaysay haddii kalena soomaha dadkii mas-uulka ka ahaa waxa weeyaan ha ku qabsadaan haddii kale wax iminkaan ka dambeyso haddaad reer xamar dambe aad ku xadgudubta ama reer banaadiri dee adar waxa weeyaan anagana kama xishooneyno reerka aad ka dhalatay maxaa yeele waa inay ku qabtaan ee ku ahbiyaan ee waddada saxda ay ku tusaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan inta daawanaysa videogan waxaan leeyahay walaalayaal sii share gareeya muxuu ahaa dadka kale la wadaaga waa xaqiiq jirto qof ku xadgudbay qabiilkeyga ayaan iska difaacay hawiyena ma haysto waa dad walaalaheyga ah ee qaali ah aan jeclahay soomaalida kale inta kalena waa walaalaheyga weeyaan mar walba waxaan jeclahay midnimada iyo gacnaha in lasqabsado laakiin noocyadan oo kale ayaa ku jira ee dadka kala geenaya ee xadaarada dadka ay leeyihiin ee aan u quureynin ee baabi'inaya marka kuwaas oo kale gacnaha laga qabto wabilaahi tawfiiq waxaan sax aan sheego waxay ka ahaatay min allah wixii iga qaldamana waxa weeyaan waa ibliis iyo shaydaan dhankiisa ka ah wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi